ku guda jirta hawlgalka ilaalinta dhulka danta guud ayaa waxay maanta amar ku bixisay in la xidho cagaf ay sheegeen inay ku guda jirtay burburinta mid ka mid ah buuraha ku hareeraysan magaalada Boorama taasoo ay wasaaraddu hore u sheegtay inay yihiin buuruhu goobaha danta guud. Isuduwaha wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guryeynta Somaliland ee gobolka Awdal Saleebaan Aadan Samatar ayaa ka warbixiyay hawlgalkaas ay ku soo qabteen cagaftaasi. waxaan maxaan ku raahday joognaa maxaan ku raahday koonfurta magaalada Boorama gaar ahaan eriyada Hay'aabe oo wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guryeyntu iyadoo ku jirta hawlgalkeedii maxaan ku raahday ilaalinta dhulka danta guud ay kormeer ku soo martay halkan isla markaana iyadoo ay la socdaan askartii la shaqeynaysay ay halkan ugu yimaadeen cagaf buurtan baabiinaysa maadaama buuruhu ay yihiin maxaan ku raahday dan guud oo aanay waxa weeye maxaan ku raahday cid gaar ah lahayn. wasaaraddu waxay amar ku bixisay halkan in cagaftii la xidho maadaama aanay wax ogolaansho ah ayna hore uga haysanin waqtigii ay maxaan ku raahday wasaaradda waqtigii ay buurta baabuunaysay buurtan in ay dan guud tahay. halkan sababta loo baabiinaya waxa weeye in laga soo saaro dhul jagooyina oo maxaan ku raahday aan sharci ahayn. buurtu waa dan guud waxayna ka mid tahay maxaan ku raahday xeer 17 sida uu sheegayo dhammaan dhulka buuraha iyo jeexjeexyadu midna maaha maxaan ku raahday wax cid gaar ah leedahay oo wax dan guuda. Boorama waxay maxaan ku raahday quruxda inta lagu yeelay waxa waa buuraha ku hareeraysan. haddii la isku dayo in buurihii qurxinayay maxaan ku raahday la baabiyo oo jagooyin laga dhigo wasaaraddu arrintaasi go'aan adag bay maxaan ku raahday ka qaadatay iyadoo fulinaysa maxaan ku raahday xeelaan waxaan tagi karin meel buur ah oo aanay wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guryeyntu war ka haynin. haddii ay maxaan ku raahday tagaan oo ay shaqo ka qabtaan marsiinaya maxaan ku raahday sharciga lamana ogola wax waana dan guud. ciddii halkan imika maxaan ku raahday hawsha wadayna sharciga la waafajinaya iyo cagaftii shaqada ku jirtayba